ما بداقي لكن وسوي شبابية الله نمكو ولقي راخيو ولقي راح نفقد دمركو وحنا هاي هل يون نذك نبدأ نتقول وقته يعني إحساس أخلى بوجي أسبنا وخو كسر سني هاي دقلات السكية وأسكح موضوع حساسي وحنا جقنا هذا كنا أخريان وين ما أهنا إسكودر أما قبيل جار وهيل لكن وقت يحضر أمه هينو إن شاء الله ولا آخرين دونا هذه لا يدخل. إن وقت هاي إن قبل ديان كشرنا وحن مده داين هذه ترى هي اللي بين إن تشوج هل سؤال ويديو. ها. وحن جورج وحن ويدين لها تشوج. وحاتري سومالي بين سومالي ده بين واشي أكتر لكن بينكم ما محدا ما صحبة مسوا بين. En si looga jawaabo su'aasha wanaagsan waxa loo baahan yahay in wax laga taabto dabiicadda mahmahda haddii aan ku weydiiyo bal la soo bax 10 mahmahood la soo bixi waydo mayso sababtu waxay tahay in mahmahdu ay soo baxdo marka adigu aad la kulanto xaalad gaara oo ay u qalanto ama ay waafaqsan tahay marka dabiicadda mahmaha waa sida mar haddii xaladuhu ay iska soo horjeedaan mahmahu ayaguna way iska soo horjeedaan laakiin masalan kal aana galeen kas ma galo marun baa adiga ma samayn mahmahadan waxaan ka dhaxlay dad kale waxaa jira mahmaho kale dumarka ku saabsan laakiin waxa ka mid ah tusaale ahaan nago ama usamir ama kasamir somaha ama kas dumar oo ka dalobra kaga dambeeyay yaa ku ogeed ma waliba waxa la yiri ninaan gursanini gogol fiican ma seexdo somaha markale waan wadayna dagaalkaas laakiin dagaalna nadaxiya ma aha laakiin dagaalka dhaqanka ku jira waayahay mar kale aan bulshada fursad idin siiyo Soomaali badan ayaa idin daawanaysa marka ladan umada Soomaaliyeed maxaad oran lahayd ku saabsan afka hooyo aniga waxaan oran lahaa soo raaca bugaagta af Soomaali ku qoran waayo akhriska badiya hadda maanta berito waxaan soo bilaabi doonaa bandhiga bugaag bugaag aad u badan baad ka heli kartaa oo af Soomaali ku qoran waad ka heli doontaa wax ka baran doontaa maskaxdiinana mar walba isticmaal yani qaadanin hadalka dadka keliya waxaad raadinaysaa oo tahay raa'i badan bugaagta baad ka heli kartaa insha Allah George hayadiina fariintan sidoo waxay ka muuqataa mahmahada soo socda walaalooy jeceli waxalo bataan oo habalo yiraystaan walaalooy isnaabina waxalo yiraystaan oo habalo bataan waa fariinta aan ku rajoonahay inaad garateen aad baad u mahadsantihiin labadiinaba runtii aad bayna aniga shakhsiyan ii qiiro gelinaysaa sida afka Soomaaliga oo ah afkayga hooyo aad sida wanaagsan ugu hadlaysaan waxaan taa mid la mid ah aan jeclahay inaan fariintan la wadaago waalidiinta ku nool dalka dibadiisa caruurta ay dhaleen in runtii ay afka hooyo ku ababiyaan oo ay baraan dhaqanka iyo waliba afkeena hooyo ee Soomaaliga ahna ay si wanaagsan u baraan iyagoo tusaale uga soo qaadanaya in afka hooyo la baran karo oo uu yahay mid fudud oo ay ladan igula sheekaysanayso afkii hooyo George-na uu igula sheekaysanayo afkii hooyo isagoo waliba u dhashay dalka Ruushka iyo sidoo kale iyadoo u dhalatay dalka Holland aad iyo aad ayaan 100% runtii idinkaga mahad celinayaa barnaamijka qiimaha leh aad igala qayb qaadateen George waana idin mahad celinayaa kun jeer ma kalmad baad rabtaa nin hadal badiyay ma wada oran kiiristeena kama wada tegin waxay yiraahdaan awrka la guurta ma huma uurka la guraaxon insha Allah uurti amban awrka la guurta ma huma uurka la guraaxon waayahay waa mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe daawadayaal waxaan jeclahay in halkan uga mahad celiyo Maxamed Khalid Yusuf oo ah
injineerka TV-ga isla markaana barnaamijkan gacanta ku hayay sidoo kale injineerada kalena aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa oo uu ka mid yahay maxamed cabdiqani iyo cabdiraxmaan qase tan iyo kulanti dambe daawadayaal aniga George iyo waliba ladan waxaan idin leenahay nabadgelyo